wiilkii xiriirku kala dhaxeeyay laga roonaha balse ugu dambeyn guursaday gabar ahaan ayuu u guursaday balse habeenkii arooska ayaa wax walba isbedeleen wiil lagu magacaabo Axmed ayaa guursaday gabadhan oo la yiraahdo Nasteexo waxa ayna xiriir kala soo dhaxeeyay 3 sano muddo ku dhawaad ah ugu dambeyntiina familkiisa ayuu ka codsaday gabadha uu dunida ugu jecel yahay inay u doonaan familkii ayaa go'aansaday in wiilkooda gabadha ay ku daraan balse wax walba waxa ay isbedeleen oo ay hortooda wax walba isku bedeleen dadkiisii kadib markii habeenkii arooska laga shakiyay qofkana la ogaaday inuu laga roona yahay waa qiso la yaab leh oo aadan wali ka dhax maqlin gudaha Soomaaliya balse xalay ka dhacday magaalada Burco ee Somaliland wiil ayaa soo guursaday gabar xiriir kala dhaxeeyay ugu dambeyntiina waa uu doontay gabadha hooyadeed iyo aabaheed waxa ay dhinteen markii ay yareed balse eedadeed ayaa soo korsatay iyo sidoo kale eedada ninka qaba ee odaga ah isla markaana ninkaasi ayaa siiyay oo gabadha sidaasi ayaa lagu daray Axmed ugu dambeyntiina gabadhii ayuu soo guursaday wax xiriir kala dhaxeeyaba laabteeda ayaan aad ugu seexan jiray jacayl waali ah ayaa naga dhaxeeyay aniga iyo iyada Nasteexo ayay magaceeda igu tilmaamtay markii hore balse ugu dambeyntii waa la wada aqal galay waxaana halkaasi ka dhacday guur la wada doonay gabadhii isla markaana sidii caadiga ahayd gabadhii waxa la soo siiyay Axmed waana uu soo guursaday ugu dambeyntiina aroos ayuu u dhigay balse siday wax u dhaceen habeenkii arooska ayaa wax walba isbedeleen dadkii oo dhan taag ayaa galay qof walbana arooskii mid ka taga mid indha oo kaliya ay ka soo haraan iyo sidoo kale mid yiraahda war waxani macquul ma ahan ayuu noqday habeenkii arooskii ahay haddaba intaana kula wadaagin qisadan la yaab kale channelkan Xodale Media subscribe sar iyo sidoo kalena like garay muuqaalkan si uu ku soo gaaro ama sidoo kale dad badan ay ula wadaagno qisadan halkan aan kula wadaagayna ee argagax leh wiilkan gabadhii markii uu guursaday waxa dhacday habeenkii arooska ayaa arooskii waxa yimid familka gabadhu ay ka soo jeedo gabar daris la ahayd oo aad u taqaanay habeenkii arooska ayay ka soo qayb gashay balse waxa ay u sheegtay familkii wiilka in waxan ay guursanayaan aysan ahayn oo qof dumar ah qof walbana waxa ay tiri maxaad ka hadlaysaa oo qof walba waa ay yaabtay balse gabadha wiilka gabar la dhalatay ayaa markii hore shaki horay ugu dhashay markii ereygan uu soo yeerana waa ay yaabtay oo isla markaasi shakigii ayaa aad ugu sii weynaaday qofkii ereyga ugu horeeyay loo sheegana waxa ay ahayd gabadhii la dhalatay wiilka waxaana u sheegaya gabadhii dariska la ahayd gabadhan uu soo guursaday wiilku balse qofkan aan gabadha ahayn balse laga roonaha ah waxaana dhici doonta midii ugu anfariirka badneed oo qof walba ay dhigaha faraha ku gashatay qof walbana ay la argagaxday waxa dhacday wiilkii ayaa hal mar loo sheegay waxaan uu guursanayo inaysan ahayn qof dumar ah Nasteexana in team ay isku bedeli karto magaceeduna uu yahay Umar isla markaana uusan ahayn qofka uu guursanayo qof dumar ah Naciimo oo la dhalatay Axmed ka guursanaya Nasteexo ayaa u timid kadibna waxa ay ku tiri qofkan aad guursanaysa ayaan ka shakisanahay ilaa cilaanka markii aan u saareynay ilaa hadeertan oo aan taajka u gelinayno ayaan anigu ka shakisanay balse waxa la ii sii sheegay qofkani inuu yahay qof qoomalood ah waxaanu helnay dariska gabadhan aad guursanayso waxaana la sheegayaa qofkani inuu 100% ahayn qof dumar ah balse wiilkii ayaa argagaxay familkii ayaana laba dhinac u kala jabay qaarna taag ayaa ka soo haray qaarna waxa ay dhaheen arooska dhaxdiisa ayaanu ku fiirinaynaa gabadhan balse waxa la yiri waa ceeb sidee loogu fiirinayaa kadibna familkii qaar ayaa soo jeediyay in dib loogu laabto qofkani waxa uu ahay isla markaana familkiisii arooska ka joogay qaar kamid ah intii badan maadaama ay dhuumatay in yar oo kamid ahayd isla markaana shakiga ugu badan waxa ku abuuray familkan wiilka guursanaya gabadha dadkii gabadhan soo siiyay inta badan kama soo qayb galin arooska balse waxa ay noqotay waqtigaasi kadib in la yiraahdo idin aaway balse ay taleefanada qaba waayaan waa familkii soo siiyay qofkan qoomaloodka ah ama laga roonaha ah wiilkan
haddaba ugu dambeyntii waxaa ku dhacday wiilkii inuu isla markiiba yiraahdo waxani isla markaana asaga laftigiisa ay shaki ku dhalato. wiilkii ayaana isla markii asaga laftigiisu isbedelay, wuxuuna go'aansaday in gabadhii lagu baaro isla arooska dhexdiisa isla markaana lagu ogaado qofkani waxa uu yahay. haddaba sidee wax u dhaceen arooskii dhexdiisii, maxaa ka dhacay? gabadhii in la baaro ayaa ugu dambeyntii go'aan lagu wada gaaray. anigu waxaan ku dhashay Burco, reer Sabool ah ayaan ka soo jeedaa. aabahay waa Biciide, dhuxusha ayuu iibiyaa. hooyadayna waa Axmed Faarax oo jaadka ayay iibisaa. dharka ayaa laga bixiyay si loo ogaado qofkani waxa uu yahay, balse ugu dambeyntii waxaa soo baxday in qofkani uu yahay qof qoomaluud ah isla markaana uusan ahayn qof dumar ah oo dhammaystiran. waxa ay ku sasabi jirtay oo ay saaxiibkeed tusi jirtay bahalka gabdhuhu ay horaadyada ku xirtaan iyo sidoo kale bac qafiif biyo lagu shubay, taasi oo tusi jirtay isla markiiba ninkanina waxa uu aaminay horaadyadan quruxda badan inay kaliya tahay qof dumar ah. inta badan asaga habta waa laga ilaali jiray, shumiska ayaa aad loogu dadaali jiray, waxa uuna ahay mid aad u jecel shumiskiisa. balse markii la yiri qofkani waa qof rag ah, gabi ahaanba meeshii ayuu ku dhacay, waxaana ay noqotay qisadii ugu argagaxa iyo la yaabka badneed gudaha Soomaaliya. sidoo kale qofka halkan idinkaga muuqda wiilka dhinacan xiga waa wiil caadi ah, tanuna waa qof dumar ah. waa qisadii labaad oo tan ka horeeyay oo ka dhacday magaalada Burco. haddaba gabi ahaanba arooskii ayaa taagtaag isku bedelay kadib markii la ogaaday qofkani inuu yahay qof laga roona ah isla markaana uusan ahayn qof dumar ah oo dhammaystiran. waxayna barnaamijkani oo bariyihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa, gaar ahaan Somaliland oo dhan ayuu aad uga socday, inkastoo Soomaaliyada dhinacyadeeda kale qisooyinkan iyo sidoo kale kuwa la mid ah ay ka jiraan, balse waxa aad ugu badan dhankan iyo Somaliland in qoomaluudku uu aad ugu soo badanayo. haddaba iska waardiyay ama iska fiiri gabadha xiriirku kala dhaxeeyo ama aad guursanayso, mar walba ay isku bedeli kartaa nin. subxaanallah. alla markuu fircawn ka sheekeynay muxuu yiri fastakhaffa qawmuhu fa ata'u innahum kanu qawman fasiqin. fircawn qoomkiisa iyo tolkii oo u talinayo madaxda u ahaa bulumiye, iyaguna yac iskama dhigina way dhageysteen way adeeceen way maqleen. sabab innahum kanu qawman fasiqin, awalba ayaga waxay ahaayeen kuwa khariban oo asaga ka darno xun. marka aad waxaad ku fiirsaa Soomaali iyo madaxdii soo martay. Soomaali waxa soo martay madax qaar aayadaha beeniyo shuuciyad wato dhahan nimanka iyo naagu waa isku dhaxal, wadaaduu markay wada jooga ku dhaxana laaya, iyo qaar amxaara xamarkeeno maataday gumaada, iyo qaar badii iyo barigiiba gata kuwaas ilaa hadda way joogaan, iyo qaar Kismaayo iyo gada Kenyaati keeno maatadii ku gumaada. maxay saa ugu xumaadeen madaxdu shacabka ayaga ka daran oo qabiilku taageeraya. wakadalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. ilaa wuxuu yiri dhaalimiinta iyo dadka xun saas baan isku hayb uga dhignaa, saas baan iska dhignaa kuwa isleh ha shacab iyo madax labadu waa kharibiin. allah